doodan qaran oo hore si wada jir ay ugu baaqeen in Somaliland laga qabto xisbiyada mucaaradka iyo xubnaha madasha wada tashiga ayaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Uxud Faysal Al-Waraabe uu sheegay inay qabashadeedu muhiim u tahay waxyaabo ay kamid yihiin siyaasadda arrimaha dibadda. doodii maanta u baahanahay waxaan u baahanahay waanay taagan tahay markii waxa dhacday waqtiga loo waayay laakiin waxaan ku leeyahay doodii oo wali ballaaran oo qodobada aan ka hadlayo oo imanka arrimaha dibadda iyo dalka si dib loogu nooleyn lahaa magaranaysa dib isku laba kacleyntii Somaliland waa loo baahan yahay waan ka shaqeynaa insha Allah taala arrintaas tuulo wada dhan yahay inaan sameeyno insha Allah national dialogue. Faysal Al-Waraabe oo maanta Hargeysa ku soo laabtay kadib safar qaatay muddo bil ku siman oo ugu maqnaa dalal ay kamid yihiin qaaradaha Amerika iyo Yurub waxa kamid ahaa waxyaabihii safarkaasi ugu baxay ka qaybgalka shir ka dhacay dalka Mexico taasoo uu ku sheegay waxyaabihii laga hadlay. safarkayga aan ka soo noqday wuxuu ku saabsanaa marka hore waxaan ka qayb galay shir dalka Mexico halkaas oo asxaabtaan isku mabda'ay ka soo shir ku lahaayeen laba maalmood socday waxa ka soo qayb galay 79 dal أصحاب كسعوتا كبعد واحد المريكان كان إيميلا واحد لو تجي واشنطن دي سي وهي تارجت كيجا أرجع واحد كلكم وسارد أريمة دي بدأ ستيت ديبارتمنت كا ما ضحك تكسن يو إس إير كان لكل ماي وحنا هاد أرنتون كل هاد النهي قضية الخير سومالان xisbiyada mucaaradka Somaliland ayaa sanadkii hore isla qaatay in la qabto doodan qaran walow aanay qabsoomin sabab aan la cadeyn. Khalid Xabsi, Kalsan TV, Hargeysa.